Assalaamu calaykum. Intaan u gelin muuqaalkeena, dabcan waxaad tihiin walaalaheena iyo asxaabteena gaarka ah. Ujeedka naga dhawey kanaalku waa gaaridda 1000 subscribe barisi dhaqso ah. Sidaa daraaddeed hay naga hilmaamin inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan idiin soo gudbinaynaa talo iyo waana ku saabsan nolosha iyo dabeecad wanaagga. Nin la oran jiray Luqmaan Al-Xakiim waxa uu ahaa nin aad u xigmad badan. Isagoo inankiisa la dardaarmaya ayuu wuxuu ku yiri: inankaygiyow, haddii uu kaa lumo maalka waxaa kaa lumay shay aad u qiimo badan. haddii ay kaa lunto sharaftana waxaa kaa lumay shay aysan lacagta goy karin. haddii ay kaa lunto rajadana waxaad noqonaysaa qof cayr ah aan waxba haysan haba yaraatee. inankaygiyow, markii aad salaad dukanaysid qalbigaaga ilaali, markii aad dadka ku dhex jirtidna carabkaaga ilaali, markii aad wax cunaysana cunahaaga ilaali, markii aad joogto gurigaaga guri aan ahaynna indhahaaga ilaali. sidoo kale wuxuu ku yiri inankaygiyow, haddii ay dadku kugu faanaan hadal wanaagooda, adigana waxaad ugu faantaa aamus wanaagaaga. inankaygiyow, iska ilaali deynta maxaa yeelay waa duliga maalinkii iyo hamiga habeenkii. Wassalaamu calaykum.